السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلمة دي لبعض وحنو بحية كلمة سلسلة إن شاء الله مناسك الحج ولمبر وضعته 1 2 3 4 5 6 انت تكتب إن شاء الله تعالى. لمبر 2 وحن نقونيا الرمو وقار دمرك وحيابها هوينك قارك هرت واحد وقاتان حجك هوينك الرسول كحول صلى الله عليه وآله وسلم جهاد كن الحج دمرو هذا جهاد أجر بدن أدينكم ربطان وحجك ويان إن شاء الله تعالى. هذا بنا الصائح إذا قبلنا أنسينا إنه إن شاء الله تعالى حج كاس إلهينا حجا مبرور وعمره متقبل الله إنه قدقوا متك عن سمينا إنه وحال روائنه عمل كاو إخلاص ونقضه وان حجية إنا كان نقنن لكن إلهي درت ونقضه لبو متابعة الرسول كي سنة إنا تكد داشو شركيات إنا اسك إلى لسو قبلوا إن شاء الله تعالى إنا محرم كيدي أي لوضتو حجينيسو إن شاء الله تعالى dharka wax alla wixii ay rabto ayay gabadhu ku xajin kartaa dhar gooni ah iyada uma xirna insha Allah taala. gabadha muhrimada ah markaad xaramka aad hawsha bilowdo oo labayka umra aad tiraahdo ama labayka xaj midkii aad markaa xiranayso hawsha gelayso ilaa hawsha iyada marka ay ka dhamaato inta u dhaxaysana ma sameynaysid inaad jirkaaga wax ka goyso waxyaabo waxa jira muharramaadkul xaj la yiraahdo oo aan la ogolayn oo kamid yahay inaad timahaaga wax ka jarto cidihi inaad maartay iska goyso waxyaabaha barafoonka iyo carafta inaad adeegsato waadha inaad disho inaad wax la yiraahdo nikaax oo kaliya guur xilligaas samayso xitaa khidba in lagu doono xilligaas oo kala gabadhii la oran jiray waa la doonaya oo kala xilliga la doono ma aha jimaac lama sameyn karo qubli iyo mubaasharata taabasho ninkaagi lama sameyn karo inta hawsha lagu jiro oo dhan ilaa lagu fasaxo oo aad ka gudato insha Allah taala waqti kooban umurta iyada waa in la iska ilaaliyo iyadana si kooban baan u soo dulmaray insha Allah taala. gabadhu sidoo kale qufaazeyn baalkan la yiraahdo galoofiska lama qaadan karo inta meeshii hawsha xajku ay socoto niqaabki sidoo kale insha Allah taala waxyaabo kale oo gabdhuhu ay isku asturi karaan wuu jira oo ka bedelan laakiin niqaabkan oo qaybkii indhuhu ka banaanayeen le waxay leeyihiin culimadu kaas waa maya midka loo jeedaa kaas weeye. gabadhu way xidhan kartaa waxyaabaha dharkeeda horan u soo sheegnay wax alla wuxuu rabaa ha noqdo dharku waxba loo kala qaadi maayo gabadhu way qaadanaysaa insha Allah taala. markii gabadhu ay gaadho miiqaadku waa meesha laga xirto oo lagu oranayo dharkii hala qaato waxaa la rabaa marka intii la qabaysto haday suuro gasho ayaad diyaar garoobaysaa labayka umra baad dhigo hadda qaabkaan u umrano waa tamattu insha Allah taala. kadib baa haday gabadhu xilliga marka xaa'ido tahay oo daahir ayna ahayn way xiran kartaa xajka wax dhibaato ama la shuruuda xajkaas kamid ma inay xilliga ay xarmanayso miiqaadka inay daahir tahay kamid ma aha. haddii marka intay tagto maka gasho ay soo samayso acmaashii kale ay gabadhu ay samayso oo tinteeda wax ka goyso oo sacyigii ay samayso oo soo samayso waxyaabihii kale loo baahnaa ay samayso kaliya tawaafkii bay dib u dhiganaysaa insha Allah taala. kaas dib u dhig waan arki doonaa haddii Allah idmo. kadib maalinta 8aad ayaa marka la gaarayaa maalinta 8aad marka la gaaro xajkii baa la xarman yawm tarwiya la yiraahdaa labayka xajjan baad leedahay xajkii baad xiran labayka allahumma labayka la sharika lak labayka innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak. kelimadan dumarka ayay gaar uga dhigay laakiin kelimada ka horeyso oo manasik al hajj number 1 wadata ayaan ahkaam badan ku sheegnay insha Allah taala waad arki doontaa haddii Allah idmo marka sidaas ula soco haddii Allah idmo. maalintaas 8aad marka mina ayaa la aadayaa duhurka iyo casarka iyo maghribka iyo cishaa'iga mina lagu tukan salaaduhu way gaagaaban yihiin laakiin salaad walba xilligeeda ayaa la tukan. waagu markuu bariyo ayaa waxaa la aadayaa maalinta 9aadka carafo markii la tagana maalintaas oo dhan meesha la joogi duhurka iyo casarka jamcu taqdiim iyagoo la hormarin baa la tukan doonaa salaaduhuna ay gaagaaban yihiin ilaa maghribka la joogi maghribka ayaa musdalifa loo soo dhaqaaqayaa musdalifa marka la yimaadana ilaa iyadana cishaa'iga iyo maghribkii baa lagu tukan iyagana jamcu ta'khiir iyagoo ah kadibna waa la joogi ilaa waagu ka bariyo dadka culculus way iska soo tagi karaan dadka kale iyo way sii joogayaan kadib baa ilaa ay ka sameeyaan waagu markuu bariyo si fiican u bariyo ayay soo dhaqaajinayaan. tayib markay soo dhaqaajiyaan ayay maalintaas waa maalinta ugu weyn xajka tobnaad baa la yiraahdaa
waxay sameynayaan jamratul caqaba ka bilaabayaan oo tuuranayaan 7 jeer buurtaas la gaman kadibna waxay sameynayaan tintooda ayaa wax ka jarayaan waa marka labaad marka saddexaadna hadii gowrac jiray wixii la waday baa la gowracayaa afarna waxaa la aadayaa tawaaful ifaada ayaa la aadayaa markii tawaafkii weynaa la soo sameeyay sacyigii qofkii xalaal buu noqday dharkiisibu ku laaban wax walba ayaa xalaal ku noqonay hatta nisaa jamaaci reerkaaga ayaa iyo galmadii markaas lagu fasaxaya tayib koobiyo tobnaadkii marka waa habeenkaas waxaa lagu soo heynayaa mina ayaa lagu soo heynayaa mina ayaa marka koobiyo tobnaad labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad sida fiican saddexdaaba in la jooga ayaa fiican galab walbana buuraha ayaad aadaysaa saddexdii buurood 21 dhagax baad qaadanaysaa midba 7 ayaad kusoo tuuri dhagax walba markaa tuurin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baad leedahay gabdhuhu talbiyadan labbayk Allahumma labbayk iyadu waxba inay kor ula jahraan ma aha oo inay kor u qaadaan loogama baahna gabadhu hadii ay iyada oo tawaafkii markay sameysay uu dhiigu ka yimaado walina sacyiga aan sameynin sacyiga way sameyn kartaa wax dhibaato ama le way sameyn kartaa iyada oo waliba daahir ahayn haweenku sacyi markaan leeyahay tawaafka ma kacbada wareegeeda maya looma ogola laakiin waa sacyi way sameyn kartaa haweenku markay sii tagayaan ee xajka la aadayo way awoodi kartaa inay kiniinka wuxugaa dhiiga lagu daahiyo ay sii isticmaasho si ay xilliga hawsheeda ay u qabsato acmaasha marka la sameynayo oo sida kacbada oo kale iyo ama maarta la sameynayo in haweenku ay wuxugaa xushmadooda ilaaliyaan weeye adigoo wax raba inaad sameyso hadda inaad raggii buuranin oo dusha ka korin oo waa la iska haweenku marka qaar iyo ragga dusha ka saaran ayaad arkaysa marka in la iska ilaaliyo hadday ku suuroodo marka xajarul aswadka in la shumiya la rabaa in la soo dhunkada la rabaa in la soo salaama la rabaa laakiin hadday ku suuroodo hadayna ku suuro gal xagga meel fog adigoo joogo baa la rabaa inaad ka ishaarto insha Allah ta'ala tawaafka marka la sameynayo iyo sacyiga marka la sameynayo haweenka waxba orod iyaga lagama rabo tartiibtooda isaga soconayaan insha Allah ta'ala gabdhaha marka iyagoo xaaido ah oo dhiigkiile adkaarta way aqrin karaan way ducaysan karaan kitaabta adkaarta way wadan karaan quraanka way aqrin karaan laakiin kitaabkii quraanka musxafkii baynan qaadi kareyn طيب dumarka iyagu culus oo kale iyo dumarka da'daha iyo dadka noocaas oo dhan iyagu kuwa xanuunsan iyo habeenkaas tobnaad ee hore bay iska soo gooreyn karaan oo si ay subaxii Musdalifa habeenka la joogo iyagu way soo tagi karaan طيب si ay maartay acmaashoodii ay u gutaan طيب gabadha markii acmaasha aad dhamayso oo 11 12 13 ay tahay oo la joogo ee dadku ay baxayaan hawaday gabadhu xaaido tahay oo tawaafkii hore way gudatay laakiin dhiigiiba hadda ku dhacay iyadu waxba laga rabo inay tawaaful wadaac soo sameyso oo ilaa marka meesha laga soo tagay waa inaad ugu dambeynta aad tawaaf soo sameyso waxba iyaga loogama baahna way iska soo bixi kartaa gabadhu xilliga wax dhibaato ama leh haweenka laga geeriyooday ee ciidada ku jira ee ninkeedii uu dhintay xilliga xajka iyadu inay aadama inay joogaan oo ciidadeeda dhameysata la rabaa laakiin gabadha hadii la furay oo talaaqaheedii saddexda dhamaadeen iyadu way safri kartaa oo haday mahram kale iyo hesho iyadu way iska aadi kartaa oo way socon kartaa wax dhibaato ah male طيب hadii ay gabadha uu ka yimaado xaadatul mar'atu qabla tawaaf al-ifaada tawaafkan weyn oo maalinta 10ka ka hor haduu dhiig uu ka yimaado oo ay adkaato inay maaragtay ay maalintaas iyada waxay sugaysaa inay dib ay u dhigatay insha Allah ta'ala dibay iyadu u dhiganaysa gabadhu insha Allah ta'ala طيب waxyaabahan dumarkii ragga ka xaraamta intaan tirinay waa iskaga mid haweenkii dumarku qof walba intii aan soo sheegay dhowrkii arimoodan aan tiriyay ma taaban karaan waa iskaga mid Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu xajkeena xaj mabruura ka dhigo umradeena mutaqabbala ka dhigo acmaasheena sidii tii rasuulka sallallahu alayhi wasallam nusukii loo sameeyay oo ka dhigo ilaahina subhanahu wa ta'ala bidacdii xumaanta naga ilaaliyo xajkana marka la joogo hal is ilaaliyo oo hadalka iyo wax sheega iyo xanta iyo waxyaabahaas iyo dooda iyo waxyaabaha u baahan in la iska ilaaliyo jazakumullahu khayr barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh